السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا soo dhawaada marka la isku soo naqd wanaagsan waa walaalkiin Abshir oo muuqaal kale idin wada waayaha Ramadaankii ayaa lagu kala maqlaa muuqaalo ma soo gelin Instagram-ka sidii hore aad iga barateen aan uga hadli jiray fitness-ka iyo nutrition-ka waxa la xiriiro maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo topic aad muhiim u ah oo ah caqabadaha haysata inta ugu badan dadka rabaan weight loss inay sameeyaan waxaa arkaa arday badan oo ila soo xiriiraan oo ku dhahayo macaan diet-kaygu uu saxan yahay inta badan ma cuno haddana weight loss ma sameeyaa ma caloosha ma jari karo ama qof dhalinyarta ka mid ah gym qaado oo dhahayo diet-ka waa iska saxay laakiin caloosha qaybta ugu dambeysa waa jari la'ahay ciladan horta waa very common waayo dadka badanaa way ku dhacdaa waxa keena marka ugu horeeya aan ka hadlo problemkan waxaa keena inta ugu badan markuu qofka weight loss inuu sameeyo rabo hal mar ayuu wuxuu bilaabaa dadaal tiro badan tusaale oo kale diet-kii uu saxaya diet-kiisa isagoo maaragtay oo caloric deficit ahaa oo haddana wuxuu kusii darayaa cardio kusii daraya wuxuu sameynayaa fat burner iyo waxbuu isticmaalaya yani hal mar uu wixii dhan isla isticmaalaya taas marka waxay keenaysaa qofkii inay geliso deficit aad u ballaaran yani deficit aad u weyn oo galaya qofka markuu deficit aad u weyn galo waxaa imaanaya metabolismkiisa inuu hoos u dhaco yani jirkiisii in uu wax fiican gubi waayo oo la qabsado cuntada yar cuntadaas yar sababtoo ah wax badanaa guboosaa cunto yarna waa qaadanaysaa diet-da ku jirtaa marka jirkaagii waxaas intuu la qabsado wuxuu galayaa waxa la dhaho starvation mode waxa la dhaho galaya yani meeshiisii isku celinaya so fat loss-kii wixii dhan way istaagayaan marka ciladaas waa very common hadda marka qofkii oo problemkan haysto oo diet-kiina sameynaya wixii dhan saxaya muxuu sameyn karaa waxaa arkay oo kale gabdho ama wiilal dhahayo aniga cunto badan ma cuno quraac iyo casho bisa cunaa wax yara cunaa xitaa haddana weight loss ma sameynayo caloosheedii meel uma socoto miisaankeyga ma degayo sababtoo ah waxaad u baahan tahay metabolismkaaga inaad fix garayso metabolismkaaga ayaa xumaa metabolismka waa qaybta jirkaaga wax gubi lahayd waa jirkaaga wax inuu gubo uma sameysana waa xilligan marka waxaa u baahan tahay inaad fix garaysid problemkaas inaad metabolismkaaga kor usoo qaadid marka maxaad sameyn kartaa haddii ciladaas ku haysato ciladaas hadday ku haysato waxaad sameyn kartaa waa in calorieskaaga kor usoo qaada maintenance waa inaad keentaa sidaa ognahay waxaa jira caloriesku waa mar aad deficit ku jirtid oo yacni negative energy aa la dhahaa jirkaagu wax badan uu bixinaya laakiin wax yar u qaadanaya maintenance waa markay isku mid yihiin waxaad bixinaysid iyo intuu jirkaaga qaadanayo iyo waxaa jiro surplus oo ah waxa aad qaadanaysid markay badan yihiin inta aad bixinaysidna ay yar yihiin marka waxaad u baahan tahay si aad u fix garaysid metabolismkaaga xumaada iyo jirkaaga maadaama uusan wax ka dhicin waxaa u baahan tahay inaad calorie maintenance ga imaatid calorieskaaga kor usoo qaadid cardio tiro badan waxaas aad kala yaraysid markii calorieskaaga aad kor usoo qaadid aad maintenance ga imaatid jirkaaga macnaha wuu isfix garayn doonaa metabolismkaaga fiicnaan doona kadib ayuu wuxuu bilaabi doonaa jirkaaga weight loss markaas waxaa la rabaa marka weight loss saxa inaa meeshaas hadhow ka bilaado marka metabolismkaaga uu soo fiicnaado maxaa sameyn doontaa marka diet ma gashay okay diet-ka asagaa ku geliyay caloric deficit soma diet-kaas bis joogtay cardio tiro badan ha sameynin waxyaabo kale ha kusii darin marka diet-ka marka wadid markaas waxaa imaan doonta marka calorieskaas intaas aa qaadanaysa jirkaaga inuu la qabsado markaas ayaa haddana waxaa kusii dari doontaa little bit oo cardio ku dari doontaa cardiogaas haddana deficit yar kusii gelin doona haddana weight loss-ka dib u bilaaban doonaa jirkaaga weight loss-ka iyo wadi doonaa haddana kadib ayaa maybe calorieska wax yar sii dhimi doontaa haddana yani fat loss-ka uu sii soconaya so ugu dambeyn marka waxaa arkaysaa processyadaas intaa ku guda jirtid adoo meesha arabta jooga oo qaybta ugu dambeysa oo caloosha ku celinaysa oo kala jaray marka qaabkaasaa la rabaa inaad u face garaysid ma ahan inaa hal mar wixii dhan aad samaysid hadda hal mar wixii dhan samaysid cardio diet maxaa la dhahay fat burner all of the things hal mar haddaa qaadatid hadhow maxaa ku yaala marka fat loss-ka istaago maxaa istaraatiijiya kale oo aad isticmaali doontaa hadhow wax ku haray malaha marka problemkaas waa very common hal iska ilaaliyo marka waxaad u baahan tahay calorieskaaga in kore loo soo qaado maintenance la keeno la fix gareeyo metabolismkaaga haddii ciladaas ay ku haysatay yacni oo aad meel u dhaqaajiso weysanid waa ila soo xiriiri kartaa waan ka hadli doonaa inta maxaa sameynaysay maxaa cunaysay cuntooyinka cunaysay intee la ekaayeen aan fiiri doonaa metabolismkaaga siduu noqday waxaas dhan aan ka hadli doonaa ka dambe waxaan sameyn doonaa program kugu habboon marka waa ila soo xiriiri kartaan asxaabta waa mahadsantiin thank you very much waxaan filayaa videoga inaad wax badan ka faa'iideen
wixii kaloo jeclaan lahaydeen insha allah qaybta comments-ka igu soo qora. Bye bye.